السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعندا وضيال دلكينبا مeel waliba aad ka joogtaan adduunweynaha waxaad ku soo dhawaataan soo gudbinta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo hadahan iyo kala aad ka daawataan Garaa TV. qodobada ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka kana hadlay xaaladda adag ee uu dalku haatan marayo. dowladda dalka Japan oo lacag gaadhaysa $1 bilyan oo dollar ku bixinaysa ka hortagga weerarada ay geystaan xarakada Al-Shabaab. gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed oo dowladda federaalka ka dalbaday soo gudbinta hindisi sharciyeedka doorashada qaranka. qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalka oo si kulul oo wadajir uga hadlay xaaladda amni xumo ee magaalada Muqdisho iyo cabashada ay qabaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Kenya oo mar kale duqeysay xarun ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo xiisado ka taagan tuulooyin hoostaga degmada Doobley. ammaanka magaalada Qardho oo si aad loo adkeeyay iyo wafdi u horkacaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo gaadhay halkaasi. Al-Shabaab oo si adag uga jawaabay hadal dhawaan ka soo yeedhay dowladda federaalka Soomaaliya. akhbaraadka dunida daawadayaal warka Garaa TV aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya militariga dalka Algeria oo ku baaqay in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaasi. qodobadaasi iyo kuwo kale oo fidsanaya daawadayaal ku daawan doontaan warka Garaa TV ee imika haatan waxaad isu diyaarisaan daawashada warkii aad daawateen oo dhameystiran.